dalka Jarmalkana waxaa wali ka soconaya qabqabasho la qabanaya kooxo argagixisa oo isku xidhan oo ah kuwa cadaanimadu madax martay iyo cunsuriyada ee midigta fog taasoo la sheegay in ay yihiin haatan kumanaan 12,000 oo xubnood ayaa la doondoonaya iyadoo la sheegay in qaar badan oo kamid ay khatar ku yihiin aadanaha ama ku yihiin badqabka dadweynaha iyo muwaadiniinta dalkaasi ku dhaqan koox la magac baxday Group S ayaa la sheegay in baarayaashu ay qabqabteen ayagoo qorsheynayay inay weerar ku qaadaan masaajido muslimiintu leeyihiin iyo dad doonaya in ay dalkaasi sharciyo ka helaan oo meelo gaar ah ku xareysan kuwaas oo ay u arkaan dad dalkooda ku soo guduulay ama si sharci ah u soo galay oo ay tahay laga taqaluso haatan waxa ay booliisku qabteen laba nin oo ay ku tilmaameen in ay udub dhaxad u ahaayeen weerar dhici lahaa labada nin ayaa la sheegay inay ku wada xiriiri jireen barta Telegramka oo la sheegay in si xoogan ugu wada socdeen waxaana booliisku sheegeen in labada nin kamid ah la siiyay waajibaad uu ku diyaariyo qalabkii iyo hubkii lagu weerari lahaa dadka muslimiinta iyo masaajidada ayadoo la sheegay in ninkaasi loo diray faasas bangado iyo waliba hub sida dandooriga u dhaca waxaana ay booliisku ninkaasi magaciisa ku soo koobeen Werner S صدقني لبتشرة ما دام على عقلين مجلس معلومات سنة وضع بحيو سيد شرعي قدرك ترمك وقرية وحكسوا كذا أي هذين قبل كبفاريان كارهان مقالة هذا أغسطبرغ dalkaasi Germany waxa ay sheegeen in 12,000 boqol oo qof oo doonaya inay dagaalamaan ama koox argagixisa ama asal raac ay ku sugan yihiin dalka iyagoo sheegay in qaar badan oo kamid ay hubeysan yihiin konton iyo saddex kamid ayaa hadeerta waxay ku jiraan meelaha ugu daran oo ah inay caddahay inay dadweynaha ku yihiin khatar sida booliisku sheegay booliiska ayaa waxa ay ugu baaqeen dadka haday arkaan waxay ka shakiyaan inay laamaha booliiska la soo xiriiraan hay'adda dhinaca dambi baarista dalkaasi waxay sheegaysaa in ay qabqabasho xoogan kala hortagi doonto dadka